waxaan kaloo rabaa inaan isdul taago musharaxiinta aan dib ugu noqdo mid baan dib ugu noqonaya aan ka soo bilaabo ra'iisul wasaarihii hore madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Cali Gaas sanadkii 2018 al-shabaab markay weerarka inagu soo qaadeen oo garacad ilaa ayl ay xeebaha ka soo degeen wuxuu ku maqnaa fasax buu ku maqnaa dagaalkii markuu dhamaaday wuxuu yiri meydadkii suuj iyo garmaal al-shabaabkii lagu laayay meydkooda baabuurka la soo saaro oo garow hal ay keenaan isku sawireen dagaalku intuu socdayna waa maqnaa waxaan rabaa inaan dagaalkaas ugu mahad celiyo qaybtii uu ka qaatay madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole dagaalka qaybtii uu ka qaatay runtii qayb aanay ka qaadan taliyayaashu ama madaxweynihii markaa joogay ama madaxweyne ku-xigeenkii buu dagaalka ka qayb qaatay Cabdiraxmaan Faroole Cabdiweli waxaan leeyahay meeshii aad bariga Puntland dhigtay wadada gaalkacyo isku xidha iyo garow say ahayd waad garanaysaan hay'ad Jarmal ah oo xilsaareed inay dhisto wala way lacagteed meel ay ka baxday hay'adana lacagteed waa la tagtay iyadoo muxuu ahay baabuurtu calaamadiyaashu ay labada dhinac yaalaan oo jajaban yihiin baa dawladani timi maantana si weeg yahay laamigi saacado kooban baa la maraa laamiga Boosaaso iyo Garowe isku xidha sidoo hawaad ogeeyeen in buundooyinkii intay daxalaysteen laamiga Talyaanigu dhisay maartay buundooyinka jajabeen maantana si weeg yahay inta saacadood la socdo dadka baabuurleyda aad weydiin doontaan ama qofka ku safray waaninkii dekadii iibiyay yiri 30 sanana dekad 180 kilomitir laga ma dhisi karo hadduu xitaa dhisi lahaa waxbay ahaan lahayd intuu lacagteedii qaatay oo iyadoo iibsan ka tagay buu ka dhaqaajiyay waxa soo haray baarlamaankiisii in dekada la iibiyo madaxweynaha laaluushka baray buu ahaa doorta waxbay ahaan lahayd oo waa lagu yaqaanay doorashada waa la islaalushaa ama muxuu si kasta siyaabo kala duwan baa wax la soo siiyaa waa dhacday dabacad xal arrin Soomaaliya ka jirtay weeyaan laakiin baarlamaanka uu dekada aan iibiye laaluush qaata waa madaxweynihii koowaad ee sameeyay Muuse hadda ma iibinaya badi ma iibiye Cabdiweli inagoo dhan buu ina iibinaya hadduu yimaado marka xildhibaanada waxaan u sheegayaa Cabdiweli waxaad ku tirahdaan tigidhkaagi gooso villa Soomaaliya ku soo dirtay Puntland soo burburi baa lagu yiri tigidhkaagi gooso intii aad hore noo yeeshay horan dib hanoo yeel waxaan ugu mahad celinayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni inuu dekadii calooshii Cabdiweli ka soo saaray dhisay bila kadib maraakiibtu ku soo xiran doonaan insha Allah hadii Allah ka dhigo waxaan kaloo taabanayaa wasiirkeena arrimaha dibadda wuxuu ahaa xilka ugu sareeyay reer Puntland federaalka ku leeyihiin isaga hayay gabadh aan xasaanad lahayn baa xilkiisii ka qaaday oo xafiiskiisii ka qaaday iskama casilin xilka oo ma oran reer Puntland oo xilka waan ka tagay ee cid soo dirsada u tartama ma oranin isagoo sidii u jooga oo xafiiskiisii gabadhay haysato oo shirki caalami ah la tagaba gabadhay ku fadhiisanaysa kursigiisii buu maanta xil u soo doontay Puntland waxba ina ma tari karo wuxuu ina yeelay mooyaane waxaan idin oran lahaa askarta waardiyeynaysaa intaad iskaga tagtaan maartay ha iska noqdo ha aado muxuu ahaayay shacabkiisa ka mid noqdo xil inagama istaahilo kuwa kale ay aan federaalka xil ka soo qaban hase ahaatee aragtida federaalka fulinayay dagaalka markaynu ku jirnay marna ciidamada intay ka soo gaxayaan maraaga Garowe ku weerarayay askartu xaasha lillah askarta waa la amraa siyaasi baa ku adeegtay mar walba dalkay u dhimanayeen qalad iyo saxkii ay u dhintaanba askarta iyo saraakiishooda kuma jiraan waxa weey siyaasiyiinta ku adeeganaysa waxaan leeyahay waxaad geysateen waad geysateen sheekho waxaad fashay waa in faatakum inta haydin ku ekaato hanka Puntland inta haydin kaga ekaato inaad xilliga igu adkayd ee dagaalka SSC socday inaad garabka Puntland ka baxdeen garabka SSC na aad ka baxdeen maanta cod ha soo raadsanina mujtamaca reer Puntland oo ay xildhibaanadu ka dhasheen oo inay iyagu adeegaan oo dantooda qabtaan ay tahay ku fasira laba shay dagaalka horta koowaad ee Boosaaso waxa riday nin hadda madaxweyne doonaya oo diiday agaasimo xilkii laga qaaday inuu xilka tiriyo dagaalka ninkaas riday waan ba ilaaway isaga hadda aad xusuusiyay asad walaalkii oo agaasimo ah oo digreeta lagu magacaay oo xilkii laga qaaday buu ka dul qaadan waayay markaas uu dagaal Boosaaso ka riday dagaalka Garowe yaa riday rag ka soo horjeestay in SSC SNM laga kiciyo oo la xoreeyo baa dagaalka Garowe riday يونس هبادين سويديننا ما شيء رجع كلا بوا شيء مشرحينها waxaan u maleynayaa in badan baan sheegay iyaga waqti uma harin baan u maleynayaa